Haddii aad ka cabanaysid madowga jirka galo meelaha qarsoon sida qoorta oo kale, kilkiraha, xajirada, xusullada, jilbaha, meelahaas oo kale madowga galo. Haddii aad ka cabanaysid, haddaba aniga ayaa maanta waxaan kula share gareynayaa alaab yar oo fudud oo meelaha qarsoon oo madowga jirka ku jiro ka nadiifinayso. Maasha Allah, cadaynayso, clean gareynayso, madowgaasna hadda ka dejinayso. Alaabtaas ayaa maanta walaalahayga inoo wada insha Allah. Waa haddii muddo yar oo kooban aad isticmaashid hubaal jirka meel walbo aad ka cabanaysid oo madow kaaga jiro nadiif ayay kuu noqonaysaa insha Allah. Ilaahay idinkiis wayna kuu cadaanaysaa. Kana bogta walaalahayga video soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno alaabtaas jirka madowga ka dejinayso iyo sidaan u samaysanayno walaalahayga. Waana ku mahadsantiin hadda mar walbo sida quruxda badan ay ila socotiin walaalahayga. Videoga haddii aad daawatidna hadda channelka like-ta, subscribe-ta, share-ta hanaga ilaawin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin. dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashina deeni sida 10 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title-ka video ku soo aragteen. qaybta ugu horeysana videoga aad ku soo daawateen wixii wara wixii hadala qaybta ugu horeysa videoga ayaan ku soo koobay walaalahayga insha Allah. marka hadalka hadda in kuguma badinaaye alaabtii ayaan la share gareynayaa walaalahayga. hadda jirka meelaha qarsoon madowga ku jiro ka dejinaysa ayaan ka soo tuuranayna insha Allah. oo hadda jirka meelaha qarsoon cadeynaysa ayaan sameysanaynaa. kana bogta walaalahayga videoga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u hagaajisanayno walaalahayga. bismillaah, alaabtii ayaan la share gareynayaa walaalahayga. jirka meelaha qarsoon madowga ka dejinaysa oo cadeynaysa. marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay weel alaabta aan ku qasano. sidoo kale marka koowaad waxaa u baahan tahay Colgate ayaa u baahan tahay. Colgate-ka noocan ayaan isticmaalaya walaalahayga. magaceedana u jeedin Sensodyne ayaa ku qoran walaalahayga. waxaan u baahan tahay Colgate midda cad ayaa u baahan tahay, midda kalarka uma baahnid. marka Colgate yar ayaan waxaan ku shubay walaalahayga weelkii inoo diyaarsanaa. sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa hal xabo liin dhanaan oo aan soo miiray ayaan ku darsanay walaalahayga. Colgate-kii weelkii inoogu jiray liin dhanaantii iyo Colgate-kii ayaan isku qasayaa walaalahayga oo hadda is dhex gelinaya. Colgate-ka walaalahayga sida ilkaha u cadeyso ayay jirkana u cadeysaa oo hadda madowga ay uga dejisaa oo uga qaadaa inaba caadi maahan. marka alaabtan hadda yalsanina walaalahayga. Colgate-kii iyo liin dhanaantii markii aan isku soo qasay walaalahayga sidaas ayay inoogu soo baxday. sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa walaalahayga hal qaando waranga ayaan ku darsanay Colgate-kii iyo liin dhanaantii inoo qasneed walaalahayga. warangadana waa inuu tusinayaa waatana walaalahayga. warangada nooca aan isticmaalayo waa noocan waaye walaalahayga. Confalo ama warango sidii aad u taqaanid. warangadana waxaa ka helaysiin dukaamada raashinka lagu gado ayaa lagu iibiyaa walaalahayga. supermarket-yadana sidoo kale. hadda warangadii iyo waxaan isku qasayaa Colgate-kii iyo liin dhanaantii markii hore isku kan qasneed ayaan si fiican isku qasayaa walaalahayga. oo hadda si fiican isku dhex gelinayaa alaabtii walaalahayga. markii aan isku soo qasay oo hadda si fiican aan isku soo dhex geliyay sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. waxaan kaloo ku darsanaynaa alaab kaloo yar oo fudud ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. alaabta ku darsanaynana waatana cheese-kan ayaan ku darsanaynaa. cheese-kan qofba si u yaqaanay. dadka qaar waxay u yaqaanaan chubno, dadka qaar waxay u yaqaanaan farmaajo, dadka qaar waxay u yaqaanaan cheese. marka waxa u baahan tahay cheese-kaas ayaa u baahan tahay hal xabo chubno ah ayaan ku darsanaynaa walaalahayga. magaciisana almaraaci ayaa la dhahaa. cheese-kan supermarket-yada dukaamada meel walba ayaa laga helaa walaalahayga oo lagu iibiyaa. marka hal xabo waxaan ku darsanaynaa hadda cheese-kii ama chubnadii sidii aad u taqaanid oo hal xaba ayaan ku darsanay walaalahayga. alaabteeni weelka inoogu jirtay hadda cheese-kii iyo waxaan is dhex gelinaynaa. hadda alaabteeni hore weelka inoogu diyaarsaneed ayaan hadda si fiican isku dhex gelinaya walaalahayga oo si fiican isku qasaya. cheese-kan inaba caadi maahan walaalahayga. xagga isqurxinta walaalahayga chubnada ama cheese-ka laguma gaaro jirka. maasha Allah, jirka wuu cadeeyaa, nafaqana wuu siiyaa walaalahayga. madowgana wuu ka qaadaa. hadda markii alaabtii aan soo qasay walaalahayga isoo dhex geliyay sidaas ayay inoogu soo baxday alaabteeni maasha Allah. alaabtiina sidaas ayay diyaar inoogu tahay walaalahayga. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo. marka alaabtan sidee u isticmaalaysaa waxaa sameynaysaa marka hore alaabtaada soo qaadanaysaa oo diyaarsanaysaa. kabacdina hadde waad marsanaysaa jirka ayaad marsanaysaa. meel alaale meeshii aad madow ka cabanaysid ayaad alaabtan sidaas haatan aan gacanta u marsanayo kale ayaad u marinaysaa. waxaa la rabaa inaad si fiican ugu masaaj gareysid oo hadda si fiican aad ugu rugtid la rabaa jirka meeshii aad madow aad ka cabanaysid.
markii intaas aad samaysid kabacdi waxaa sameynaysaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo ayaa alaabta jirka ku haynaysaa oo ku joogaysaa kabacdina hadee waad iska dhaqaysaa waad iska meeraysaa ama waa ka qubaysanaysaa haddee marka alaabtan jirkaaga ka dhaqdid hubaal jirkaaga isbedel weyn ayaad ka dareemi doontaa insha Allah ilaahay idinkiis laakiin waxaa la rabaa alaabtan marka hore aad isticmaalaysid waxaa la rabaa inaad jirka si fiican u marisid la rabaa ugu rugtid oo hadda si fiican jirka ugu masaajeysid ugu jijibisid la rabaa 20 kaaga daqiiqo 15 kaaga daqiiqo aad ku haysid kabacdina aad ka qubaysatid 3 maalin oo isku xigto ayaa la rabaa inaad maalin walba aad sidaas samaysid oo maalin walba aad marsatid haddii aad 3 maalin oo isku xigta alaabtan isticmaashid hubaal adi iyo hadda jirka meelaha qarsoon iyo madow waa isdeyseen insha Allah ilaahay idinkiis hadda walaalahayga alaabtan marka sidaas ayaa loo isticmaalayaa ila soo tijaabiya oo igala faa'iideysta waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo waa inoo kulantay dambe xiiso leh iyo anigoo niisido video kale cusub walaalahayga alaabtan hadda jirka meel walba ayaa marsan kartaa cajirada qoorta xusullada jilbaha meel ay diideyso malahan walaalahayga meel walba jirkaaga aad madow ka cabanaysid ayaa ku dhaqaysaa alaabtan oo ku nadiifinaysaa xataa gacmaha iyo lugaha alaabtan waa u isticmaali kartaa waa ku dhaqan kartaa waa ku nadiifsan kartaa waa ku cadeysan kartaa wax dhib ah malahan hadda walaalahayga videogeena maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa insha Allah videogana sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga si ay walaalo badan uga faa'iideystaan channelka hadii aad ku cusub tahayna soo dhow minankaaga waa channelka inoo subscribe garee inoo like garee haddii aad videoga daawatidna hadda videoga like ta ka ilaawin like ta waa dhiirigelinteena koowaad team najax hadaan ahnana like ta waa ku dhimana haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsantahay mar walbo la joogaaga quruxda badan